daawadayaal aan taaganahay waa afaafka hore ee suuqa Waaheen waa halkii xalay dabku qabsaday oo ka kacay halkan waxa ka muuqda burbur badan halkani waxay ahaan jirtay suuqii bacadlayaasha kaasi oo ahaan jiray mid ciriiriya ama isku cufan balse hadda waxay halkani noqotay goob banaan xaaladdu marka aad eegto sidii hore way ka wanaagsan tahay maadaama oo hadda dabka intiisii badnaa la damiyay waxayna soo gaadhay oo halkani soo gaadhay dabdamis ka socda ciidanka dawladda deegaanka kuwaasi oo heegan ugu jiray ilaa saaka inay dabka damiyaan sidoo kale waxa halkani ku sugan ciidanka kala duwan ee Soomaaliland iyagoo dhamaantoodba ka qayb qaadanaya samata bixinta hantidii dadka halkani lagu waayay iyo sidii dabka loola dagaalami lahaa wali waxa socda sidii dabka loo damin lahaa iminkana waxa barbarkayga taagan Cabdi Aamin oo isaguna kamid ah goobjoogayaashii halkani taagnaa markii uu dabku kacay isaga ayaa inooga warrami doona xilligaasi iyo xaaladdu sida ay ahayd xaaladdu waxay ahayd 6 barkii bacda maghrib wuxuu ka kacay bakhaarada bacadlaha bakhaara kamida bakhaarka aniga hormaray ayuu qiiqayay 3 inan baa arkay iyo 2 hablood oo wadada marayay markaas aan ku soo beeray meeshii oo qiiqasa ee marka bakhaarkan garinayay bakhaarkii baan jabiisay oo lagu soo ururay ilaa 9 nin baan isku helay jabiyaan isnii bakhaarkii oo bakhaar hoosta ka antaraamanoo qufullo waaweyn lagu dhajiyay waan jabin kari weynay saacad baan la rafanana waxaan doonay dabka inaan ku qabanno halkiisa horena waan ugu qabanay markaanu jabin kari weynay dibaddu u soo baxay xadhigii leerku dhankaana u raacay isla markiiba sakadaas uu qabsaday bari haddana tii galbeed buu qabsaday markaasuu isku furmay bilaabantay markaasay qaylada iyo sawaxan kuna bilaabmay marka anigu meheradaan ku lahaa u dhow 5 mitir 8 mitir meelaha u jirta tii baan ku cararay markaa isla intaan cararayay buu soo gaadhay dabkii meheradaydii sidaas markaa ka dhacday meesha mushkil badan baan ka dhacday meheradayda ma way safbeeshay dabku waa gabagabo waa la gurmaday waa la baqtiyay gaanti badan way baabaaday guriyii magaalada fooqaqii weyn ka arkaya